Assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada kanaalka Layaabka Media. Haddaba muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa dad sameeyay waxyaabo doqonnimo ah oo ugu dambeyn naftoodii ku waayay. Inta aanan barnaamijka bilaabin waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalka like saarto si uu dad badan u gaaro. Marka aad safar u gasho beerta xayawaanada waxaa waajib kuu ah in aadan ka degin gaariga, waana sharci mar walba, waana badbaadada dadka iyo xayawaanada. Balse laba oday oo dalxiisayaal Jarmal ah ayaa go'aansaday in aysan dhageysanin digniinaha badan, ayaa go'aansaday gaarigii inay ka degaan, waxayna aadeen dhankii xayawaanada. Isla markii ay gaarigii kasoo degeen ayay kusoo dhaceen koox shabeel ah, sidaas ayay ku geeriyoodeen labadii oday ee Jarmalka ahaa. Waxaa jira waxyaabo gaar ah oo ay tahay inaad ogaato inta aadan isku qaldin. Mid ka mid ah waxyaabahaas ayaa ah waxyaabaha qarxa ee khatarta ah. Laba nin oo ku safrayay dalka Ruushka ayaa la kulmay bam gacmeed nool. Bam gacmeedka ayaa ahaa mid halis badan oo qarxi kara xilli walba. Sababta uusan u qarxin waxay ahayd cilad ka jirtay bamka. Labada nin ayaa isku waafaqay in kor loo qaado bamka si ay sawir ugu galaan, balse sawirka ayuu ku jira ayuu bamkii ku qarxay si la yaab leh. Sidaas ayay ku dhinteen, laakiin telefoonkoodii ayaa badbaaday. Sidaas ayay booliiska ugu isticmaaleen caddeyn ahaan. 2002 nin beeraley ah oo ku nool Brazil ayaa aaday beertiisa, wuxuuna ku arkay geed kaneeco raxan ay saaran tahay. Shinnidu waxay noqon kartaa khatar oo waxay sababi kartaa dhimasho. Ninkan ayaa isku dayay inuu soo qabto boqorka shinnida. Wuxuu u adeegsaday soo qabashada shinnida dab, balse fikradiisa ayaa ahayd inuu bac gashto wejiga. Balse ninkan ayaa ilaaway inuu bacda u samaysto meel uu ka neefsado. Ugu dambeyn ninkii ayaa neefsan waayay, sidaas ayay kaneecadii ku dishay. Baabuur wadista waa khatar iyo waxyaalaha dhacaya haddii aanad ka fikirin. Naag Australian ayaa hal maalin ilowday wax aad u muhiim ah, sidaas ayay baabuurkeedii u dhigtay baakin. Waxayna u socotay suuqa adeega, waxayna rabtay inay hubiso inay haysato bac. Markaas ayay gaarigii kasoo degtay, waxayna hubisay gaariga xaggiisa dambe, laakiin waxay ahayd qalad aad u weyn maadaama baabuurka aanan ku jirin bareeg. Gaarigii ayaa bilaabay inuu gadaal usoo dhaqaaqo haweeneydii oo ka dambeysa. Haweeneydii ayaa sidaas ku geeriyootay oo gaarigii ku maray. Muuqaalka maanta intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Haddii aad ka heshid muuqaalka ha ilaawin inaad like saarto. Haddii aad ka heshid mawduucyadan oo kale qaybta commentiga nagula wadaag. muuqaalka hay intaan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.